Cabdulaahi Cali Xirsi oo ku guuleystay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare. Haddaba taariikhdiisa oo kooban, Senator Cabdulaahi Cali Xirsi ayaa ku guuleystay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya, waxaana u tartamayay ilaa iyo 7 musharax. Senator Timo Cadde ayaa helay codad gaaraya ilaa iyo 30, halka musharaxa la tartamayay Cabdulaahi Sheekh Fartaag uu helay codad gaaraya ilaa iyo 23 cod. Cabdulaahi Cali Xirsi ayaa laga soo doortay Puntland, waxa uuna ka soo jeedaa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, waana siyaasi khibrad dheer u leh siyaasadda arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Puntland, isagoo ka soo noqday wasiiro iyo la taliyaal dhanka madaxda dowlad goboleedka Puntland, waxaana markii ugu dambeysay uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Puntland, isagoo dhowaan ku guuleystay inuu ka mid noqdo golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya, waxaana maanta u suurtagashay in uu ka noqdo golaha aqalka sare gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya. Wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. ugu horeyn gudoomiyaha cusub, gudoomiye ku-xigeenka koowaad, gudoomiyihii hore, senatarada guddiga doorashooyinka, senatarada la doortay ama aanu isu golaha nahay, martisarafta, saraakiisha, miidyaha, ciidanka amniga ilaalinaya, dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan rabaa halka inaan uga mahadnaqo senatarada aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ee codkooda la siiyey, ee maanta la siiyey kalsoonidoodii inaanu hogaamino afartaas sare soo socota haddii la idhaaho. waxaan kaloo rabaa inaan idhaaho intii iyana aan codka la siin iyana waa mahadsan yihin. dhammaantiin isku mid baynu nahay, baynaan kala guulaysan, waa wada guulaysanay. waxay la tahay waxaa layna ka rabaa waxaa weeye afarta sare soo socota haddii la idhaaho, haddaynan sanad ku badarintay mala in haddii la idhaaho, in haddii laha yidhaahdo dalkan shuruucdiisa la dejiyo. innagu waxaynu nahay sharci dejin, sharciga lagu dhaqmo. waxaynu hormuud u nahay hadda baarlamaankii federaalka ee aqalka sare iyo aqalka hoose oo dhowaan malanyaro bariis dooran doona, dabadeedna madaxweyne la dooran doono. waxaynu rajaynaynaa dowlad dalka dejisa oo nabdoon oo xasiloon inay dalka ka dhalato. dhammaantiin waa salaamantiin. salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Saddexda gudoomiye ee maanta u suurtagashay in ay ku soo baxaan ama ay ku guuleystaan tartanka doorasho ee maanta ka dhacay aqalka sare ayaa waxaa kaalinta koowaad ama gudoomiyaha aqalka sare loo doortay gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdilaahi, oo markii labaad xilkaasi ku guuleystay in uu ka noqdo gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalk Soomaaliya, waxaana markii ugu horeysay gudoomiye ku-xigeenka koowaad noqday golaha aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim oo ah senator ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle, waxaana gudoomiye ku-xigeenka labaad loo doortay Cabdulaahi Cali Xirsi Timo Cadde oo isna ka soo jeedo deegaanada Puntland.